بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. waxaan caawa fadhigan aan kaga hadlaynaa muxaadaro cinwaankeedu uu yahay tawqiiru alculamaa bayna alistiqlaali waalibtidaal. culimada weynayntooda iyo qadarintooda iyo ixtiraamkooda oo laba dhex yaalla, qolo dana ku fushanaysa oo ribix iyo faa'iido gooniya ka raadinaysa, ama ajendayaal iyagu markaa ay wataan ku fushanay, iyo kuwo ibtidaal samaynaya oo sidii loo baahnaa iyo ilaalintii loo baahnaa iyo ixtiraamkii loo baahnaa aan culimmada kula dhaqmaynin. laba dariiqo weeye saan sharxi doonno in sha allahu tacaala. waxay sababtu tahay kelimadan walibaad la socotaan oo maalmahan miidiyaha ama social media ayaa aada waxaa loogu hadalhayay dhacdo nin sheekh oo dhintay oo muqdisho ku dhintay, sheekh cuhmaan xidig la yidhaahdo, oo ka mida dariiqooyinka suufiyada culimmadooda u waaweyn ka mid ahaa. geerida sheekha kadib ayaa hadalla damba soo baxeen oo dadka qaar tacsiyeeya, qaar u duceeya. iyadoo hawsha halkaa marayso ayaa nin anigu aanan horay aqoon ugu lahayn oo la yidhaahdo ibraahim ciyow ayaa facebookiisa wuxuu ku qoray hadal kooban oo uu sheekha kutubtiisii iyo waxyaaluhu ka tegay khaladaad ku jira ku tilmaamayo, oo uu leeyahay kutubta sheekha waxaa ku jirta shirkiyaad ama mukhaalafaad waxyaalo shareeca khilaafsan. waxaa kaloo cabsi ka muujiyey sheekha qabrigiisa in la caabudi doono oo lagu xadgudbi doono. wixii intaa ka dambeeyey wadaadkii hadalkaasi ka soo baxay waa lala kacay, waa la isugu tegey, looma kala hadhin. dowladdana waa lagu diray, wadaadadiinii xaggii xaggaba waa lagaga qayliyey, caamiya khaasaba qoladii xataa yutubleyda ahaa dagaalkay qayb ka galeen iyaguna. arrinkaasi waxaan isleeyahay wuxuu u baahday in la caddeeyo xaq iyo baatil baa isdhex galay, khalad iyo sax baa la ysku dhex daadiyey. waxyaala ay ahayd in la khasiso ayaa la camimay, iyo xawayaal ahayd in la camimaa la khasisay. xaquna saasuu ku dhex lumaa, xadgudub badanna waa ka dhacaa. waxaan doonayaa inaan dhowr waqfo isdul taago qadiyada ku saabsan. qodobka koowaadi wuxuu yahay oon doonaya inaan isdul taago culimmada qadarintooda iyo weynayntooda iyo ixtiraamkoodu sharcan waxaa ku tusay kitaabka ilaahay, sunnada nebiga sala allau alayh wasalam, iyo ijmaaca ummadda. waa masalaan khilaaf ku jirin, lianna culimmadu waa khaasatu lmu'miniin. mu'miniintoo si guud mudan in la ixtiraamo, la qadariyo, xuquuq isku leh ayay culimmadu ka sitaan.
وخاصة دي وي مؤمنين تجود وي علماءنا وخاصة حلقة المام كراين علماء يهين صفوة الأولياء ولي وحل إله سيد إلهي كوقي حي تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون dadka iimaanka iyo alla ka cabsiga laga helay waa awliyo way awliyada hadana si kala khaasan kuwa awliyanimada si xigay culimada kamid oo hadayna culimadu awliyo ilaahay ahayn awliyo kale ma jirto culimadu waxa laga wadaa markaan culimo leenahay waa dadka diinta aqoonta u leh kuna dhaqmo way nin aqoon kaliya xambaarsan laakiin aan ku dhaqmayno culimo ma nin diinta inuu ku dhaqmayo isku dayayo laakiin aan aqoontii lahayn culimo ma culimo waxa la yiraahdaa macaalim la dhahaa markuu kulansado aqoontii iyo dhaqankii iyo xalaal miirashadii iyo warac kuwaasan ka hadlayna marka waa safatul awliya sidoo kale waa warathatul anbiyaa ودادك دحالكي أنبياء حنبارسن قدرين تودي مرك احترام كودو وقدرين إله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لفظ ضيستو ذاتك علماء أنا معنى هذا وحوي الروح الدين تيسا أو هلس قليسا أما تقيس وكيلها الإمام عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله من استخف بالعلماء ذهب دينه روحي علماء فضوضيسته دين تيسا تكته دين لا أنبو النقضاوي sidoo kale to wax ka sheega culimadu wax laga sheego gardarro wax looga sheego ayadana waa kii ku tilmaamay al-Imam Ibn Asakir al-Hafid Ibn Asakir alayhi rahmatullah waa kii ku tilmaamay luhumul ulama'i masmuma culimada hilibkoodu waa sumaysan yahay ilaahina caadadiisa waa la yaqaana oo kula dhaqmo dadka culimada aflagaadeeya ama wax ka sheega ilaa hadalkiisa marka dambe uu ku khatimay in ay dadkaasi inta badan ku dhintaan khaatimo xumo iyo diin xumo ay ku dhintaan marka culimada qadarintooda iyo ixtiraamkoodu waa mas'ala mafruuq minha waa mas'ala aan doodi ku jirin caami iyo khaasaba la wada garanayo ku dheeraan meen arinta marka laba qolo ayaa ku gaftay oo ku khaldantay culimada hal ixtiraamo oo hal qadariyo laba qolo ayaa ku simbir raxatay qolada koobaad waxa weey waa qoliyo ka gaabiye xaqi culimada oo ihaanaystay oo caaya oo ku xadgudba oo acraad iyo sharafka culimada gaara oo afkoodii adinkooda ku sallida kuwaasi waa kuwan hadda ka soo hadlaynayo waa kuwa khaatimo xumada looga baqayo diin la'aantana ku tilmaaman way gaar ahaan hadday dad ninka culimada ah ay wax ka sheegayaan ay wax uga sheegayaan cala shaan diinta uu xambaarsan yahay daraadeed hadii ninka culimada iyo ruuxa wax ka sheegayay adduunyo dhaxmarto ama wuxuu dhaxmaraan waa laba ruux oo wax isku qabsaday waa laakiin haduu diintiisa iyo sharciga uu xambaarsan yahay daraadeed ku maagayo markaasi waxay noqonaysaa fa innahum la yukadibunaka walakin adh-dhalimin bi'ayati llahi yajhadun isaga marka looma socdee diinta uu xambaarsan yahay wax marka loo socdo wax laga sheegayo macna marada sidaas tahay ma banaana marka dadka culimada ah sharcan in muxuu ahaay lagu xad gudbo gaar ahaan haduu ruuxu dhinto oo uu geeriyoodo markaasi asal ahaan waa inaan la caayin waa inaan waxba laga sheegin waa in laga gaabsado laana wax weeyaan marba hadduu dhintay ilaahay buu xisaabtiisu la taalaa adigu xisaabiyo uma tihid hadduu wuxuu xumeeyey iyo wuxuu wanaajiyeyba abaalkeeda ilaahay baa marinaya maxkamad ilaahay buu tagaya adiga laguma dir inaad xisaabiso hadduu dhinto ruuxa muslimka ee dhintay in loo duceeyo istighfar loo weydiiyo ilaahay naxariistiisa loo weydiiyo
ayuu inaga mudan yahay isaga shakhsiyadiisa sharafkiisa cirdigiisana aan lagu xadgudbin nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis sahih al-bukhari ku sugan min xadiis Aisha wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu dadka dhintay ha caayina maxaa yeelay waxay hormarsadeen bay gaadheen waxay hormarsadeen way hayaan adiga marka caydaadu meel ma leh waa xadgudub iska qaawan waa maadaama ruuxani wixii uu hormarsaday ilaahay agtiisa uu ku hayo adiga wuxuu hormarsaday khalad ba ha ahaadee khaladkiisa inaad sheegto uma baahna ama aad caydo uma baahna markaas laakiin waxaa laga soo reebaa oo masaladaasi itlaaqa ma lehe waxba laga soo reebaa waxaa laga soo reebaa haddii ruuxa dhintay markuu noolaa uu ahaa ruux sharka muujista oo fisqiga muujista oo bidcada iyo khuraafada muujista oo aan la gabanin hadduu ahaa markuu dhinto sharkii uu samayn jiray waa lagu sheegi karaa waxaana ku tusaya xadiidka kadalika fi saxiix al-bukhari wa ghayrihi ku sugan min xadiidi Anas ibn Malik nabigeenna sallallahu alayhi wasallam Anas ibn Malik baa wuxuu leeyahay marru bi janaaza nabiga sallallahu alayhi wasallam janaaza la soo mariyay mayd la wado baa la soo mariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam fa asnaw alayhi khayran markaasay saxaabadu janaazadii la soo mariyay maydkii bay khayr ku sheegeen khayr bay ku amaaneen hebel buu ahaa sidan uu ahaa wanaag buu samayn jiray uu daaco badnaa akhlaaq wanaagsan wanaag bay ku tilmaameen markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam wajabat way waajibtay buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam mid kale haddana la soo mariyay janaaso kale mayd kale la soo mariyay fa athnaw calayhi sharran markaasay saxaabadu shar ku sheegeen balaayuu qabay sharlow buu ahaa macaasi baan ku naqaanay dembiilu ahaa yacni khayr darnaa dadku dili jiray oo xaman jiray sharkiisii uu lahaan jiray bay ku sheegeen waa mayd la wado janaaso la wado waa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam wajabat buu nebigu sallallahu alayhi wasallam waa waajibtay tii horena muxuu yidhi wajabat tanna wuxuu yidhi wajabat salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaahu baa marka wuxuu yidhi maa wajabat buu ku yidhi yacni maxaa waajibay markii aan janaaso ama mayd wanaag lagu sheegayna way waajibtay baa tiri kii dambe markii xumaan laga sheegayna way waajibtay baa tiri rasuulka maxaa waajibay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam haadaa athnaytum calayhi khayran fawajabat lahu aljanna midkan khayr baad ku sheegteen jannaa u waajibtay buu nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam wa haadaa athnaytum calayhi sharran kanna shar baad ku sheegteen oo aad ka sheegteen fawajabat lahu annaar buu nebigu sallallahu alayhi wasallam naar baa isagana u waajibtay antum shuhadaa'u llahi fi lardi markhaatiyadii ilaahay ee dhulka joogay baa tihiin buu saxaabada ku yidhi nebigu sallallahu alayhi wasallam marka u fiirso nebigoo jooga sallallahu alayhi wasallam ayaa janaaso la soo mariyey meesha ayay saxaabadu shar ku sheegeen nebiguna waa taqriiriyey sallallahu alayhi wasallam oo weliba natiijada ka dhalaysuu nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam markhaati kaca ay saxaabadu xumaanta ay meydka ku markhaati kaceen mas'alada marka meyd oo dhan waxba lagama sheegi karo waxay khilaafsan tahay axaadiista nebiga sallallahu alayhi wasallam asalku waa in meydka muslimka ah aan yacni waxa weeyaan la maagin oon la caayin waase goorma waa hadduu ahaa ruux wanaag lagu yaqaanay ma mudna markaa in xumaan lagu sheego ama ma ahee ruux muslima mastuurulxaala buu ahaa xumaanna laguma ogeyn sharna ma muujisan jirin xaalkiisuna waa iska asturnaa isagana sidaasoo kale waayo ama ruuxa mujaahirka ah ee xumaanta bannaanka dhigta ee munkaraadka iyo fawaaxishta iyo xumaanta bannaanka lagu yaqaano markuu dhintay wuxuu ahaan jiray waa lagu sheegi karaa axaadiista nebigana sidaa ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkaasaa u kala dhigay oo masalada u kala qaaday qolo waa qoladaa marka oo waa qolyahaasi xadgudubka iyo sameey waxaan dhihi lahaa muxuu ahay ka gaabiya arrintaa iyada qolada labaad waa qolyo culimmada ku xadgudba xadkii ilaahay dhigay
iyo ixtiraamkoodii bay ka badbadiyaan martabadii ilaahay dhigay bay dhaafiyaan martabad ilaahnimo bay gaadhsiiyaan oo wixii ilaahay lahaa in culimada la siiyo oo muxuu yahay in la baryo wax ilaahay mooyo cid kale awoodi karta aysan jirin in la weydiisto ama kuwa dhintay ha noqdeen ama kuwa nool ha noqdeen in baahiyada waaweyn loo gudbisto oo roobkeena caruurkeena aafada qaada yani caafimaadkeena waxaynan yani wax way intay noolaayeen bayna kari karayn in la weydiisto ama loo gudbisto ama la kaalmo weydiisto ama yani wax la tala saarto ama loo gowraco ama muxuu ahay waa xuquuqdii ilaahay lahaa waay xuquuqdii ilaahay lahaa ee cibaadadiisa ah markaad wadaadka ku maamuusto wadaadka maadan karaameynina martabadii ilaahay dejiyey baad dhaafisay markaasaa waxaad geysay meeshii ilaahay lahaa waa midka rabbigeen leeyahay tabaaraka wa tacaala walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun alla idinma amrayo nebiyada walaa ya'murukum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiin malaa'igta iyo nebiyada inaad rabbiyo ka dhigataan alla idinma amrayo maxaa yeelay markaad muslimiin ahaydeen kadib inuu gaalooba idin dhaho suurtagal ma aha aya'murukum bilkufri ma gaalnimuu idin amri bacda id antum muslimuun bacda id antum muslimuun markaad muslimiin ahaydeen kadib bimacnaa waxa weeye ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo ama rasuul ha noqdo waxa alla leeyahay xuquuqdiisa u khaaska ah haddaad makhluuq siiso makhluuqaasi rabbiya ilaah baad ka dhigatay meeshaa in wadaadada la geeyo markaa ixtiraam ma aha qadarinna ma aha maamuusna ma aha waa shirki iyo gaalnimo iyo wixii ilaahay lahaa ood siisay iyo xadkood dhaafisay waa qoliya saasina waa jira ama marmarka qaarkood waxaa dhici karta in aad wadaadkii iyo sheekhii martabadiisii wadaadnimo intaad dhaafiso in aad geyso martabad nebinimo oo kale ama malaa'igtoo kale oo aad ka dhigto sida wadaadkani inuusan gafin oo kale sheekhaygu ma gafo wadaadkanagu ma gafo mas'alo laguma qabsan karo kitaabadiisa khalad kuma jiraan weligiiba khalad laguma arkin ma nebi baa mise waa malag marka waxaad leedahay sheekhaygu waa macsuum cismadana waxaa iska leh malaa'igta iyo rususha iyo ambiyada iska leh halkaa markaad gaadhsiiso sheekha ama ninka culimmada ana iyadana waad ku xadgudubto xadkii waad dhaafisay labadaasiba qur-aanka iyo sunnadu waa diidan yihiin ilaahay meeshuu geeyee dhigay hoosna ha uga dhigin hana dhaafininoo meelayna gaadhi karin ayna lahayn oo ama nebiyadiiyo malaa'igtu leeyihiin ama allaba gooni u ah ha geynin yacni wax weeyaan meeshii ilaahay wax dhigay dhig meeshii qur-aanka iyo sunnadu wax dhigeen dhig cadaaladdana ha ka tegin halkaasi marka waxaa la tilmaamayaa in aad laysaga jiro weliba arrintaasi wadaadada in xadka la dhaafiyo inta badan waxaa keena ama sababa ammaantoo laga badiyo ama ictiqaad aan saxsanayn oo laga ictiqaadiyo waxaana sabab u noqda ruuxa in la buunbuuniyo dadka caamada ah wax magaradka markaad shay u buunbuuniso oo wadaad u buunbuuniso oo aad muxuu ahay ka badiso wuxuusan lahayn ka badiso caamadu wuxuusan ahayn bay ka ictiqaadinayaan halkaana waa meesha markaa uu ka yimaado inxiraafka caqiidada iyo cibaadada iyo diintuba uu ka yimaado waa cabdillaahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhu wa ardaah fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan cabdullaahi ibni cabbaas baa wuxuu ka warramayay bini aadamkii ugu horreeyey sidee bay gaalnimadu ugu bilaabatay aadam ilaahay wuxuu abuuray isagoo nebi oo muwaxid ah xaaskiisii iyo carruurtiisiina sidaasay ku barbaareen aadamaha tawxiidkaa asal u ahaa shirkigani goormuu ku bilowday cid aan ilaahay ahayn in la caabudo see ku bilowday sababta keentayse maxay ahayd cabdullaahi ibni cabbaas baa radia allahu tacaala canhu wa ardaah ka warramayay
حديثكنا أثركنا وحكوشنا في صحيح البخاري وحوليه عربت مقعيدي عابود جيران صنميدي عابود جيران مقعيدودي وودي إيو صواع إيو يغوث إيو يعوق إيو نصري إيو ومقعيدي أوثانتي أصنامتي أي عابود جيرت عربت وحوليه هي وحي أهايين أسماء رجال صالحين رجوان وناكسن بمقعيدا لهان جري intaan sanamyada loo bixinin rag wanaagsan oo akhyaara oo cubaad oo saalixiina baa magacadan iska laha min qawmi nuux oo nabi nuux qowmkiisii kamid ah falamma halaku awha ash-shaytaanu ila qawmihim ragii wanaagsanaaye magaca lahaayee culimada ahaayee la jeclaayee cibaadada badnaa markay dhinteen shaytaan baa dadkoodii wuxuu u waxyoodo ugu sheekeeyay aninsibu ila majalisihim التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ميلاهي فريسان جيرين تالوين وغدسا كدبنا تالوين كمركا دو دستان مغعيودو دينا كو مغعابا فارحي شيخاها جامعي علمي بدنا محو اهاي عليغي زاهد كاها انتا تالوين دستان raggii aad taqaaneen saalixiinta magacyadoodii taalooyinka nin walba magaciisa taaladiisa ugu qora shaydaan baa saa ku yiri sidii bay sameeyeen nin walba taale u dhiseen kadibna magacyadoodii bay ku qoreen fafa'alu falam tu'bad sidii bay yeeleen laakiin xilliga la sameeyay jiilkii joogay meena caabudin fadhii kartaa waxoogaa in ay wax ka ictiqaadiyeen maxaa dhacay markaa kadib حتى إذا هلك هؤلاء أولئك كوي تالوين كدسي مركي دينتان كادبن وجيل كاسي تغي جنريشن كاسي مركو تغي واستنسخ وتنسخ العلم عبدت علمي جينا مركا دوغوبو اسبدلي يعني وحوي جيل كي لباد كي سدحات إن يربا مركا وحا لو بلابي إن تالوين كي لدسي لغو فتنوبو مركي وحا لو بلابي إن لبربركيستو waxay yidhaahdeen wareedhe taalooyinkan meesha ka dhisan kolley wixii loo dhisay bay qabaane bal maartay waxbaa ku jiray bal waxa laga raadiyo qoladii ugu horeysay marka waxoogaa waxbay ka ictiqaadiyeen kuwii xigay waxay bilaabeen inay yara barbarakaystaan oo isku masaxaan kuwii xigay iyo jiilkii xigay way caabudeen si toosa waxay u weydiisteen wixii ilaahay la weydiisan jiray tabaaraka wa tacaala cibaado toos ay caabudeen marka maxay ku timid in aadamuhu uu dariiqa tawxiidka intuu ka leexdo shirki ku dhaco wuxuu ku bilowday alghuluw fi saalihiin dadka wanaagsan oo xadkooda la dhaafiyo oo la buunbuuniyo oo amaanta laga badiyo oo taalooyin loo dhiso oo gumburo loo dhiso oo qubuurtooda la dhiso asal ahaan halkaas ay ka bilaabatay bini aadamku inuu shirki galo tawxiidka ka leexdo saas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam bi hadhihi almunasaba ayaa rasuulku wuxuu diidi jiray qubuurta in la dhiso bal nabigu sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih muslim abu al-hayyaj ninka la yiraahdo ayaa wuxuu ku yiri cali miyana kula diraynin wuxuu nabigu ila diray farintii nabigu uu dhiibay hawshi ma kula diray adigana ma ku dhiibay oo maxay ahayd nabigu wuxuu yiri buu qabri kor u dhisan hadaad aragto dumi burburi waxa yeelay waa meeshii bini aadanka laga raacay meeshii bini aadanka laga raacay ee fidnadiisu ka bilaabatay oo taalooyinka iyo qubuurta la dhisahaya ayaa nabigu ka dagaalamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arrinkaasi marka waxa weeye wuxuu keenayaa quluwigu in muxuu ahaayay meelahaas ka bilowda kadibna waxyaalaha sababa waxa kamida in amaanta laga badiyo ruuxa ama cilmigiisa ama cibaadadiisa ama kaalintiisa iyo dowrkiisa amaantiisa in xadka la dhaafiyo saas daradeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiidka Umar في صحيح البخاري وغيره نبي وحولي جري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أما أنت إذا هبون بونين وهكو حد قد بنا سيدا أي كريشتانكو نبي عيسى وكو حد قد بنا وكلا أما أنت إذا هكبض بدنين وهكو حد قد بنا فإنما أنا عبده أنوكو أدونك إلهي يبانهي فقولوا عبد الله ورسوله وحد اللهدان أدونك إلهي رسول كيس بونبونين تن يا مان تن فرح بدن إيجاد دايب النبي صلى الله عليه وسلم
maxay la rasuulku wuxuu ka baqayaa amaantan iyo boonboonintan faraha badan inay fitna iyo ka dhalato dadka diintooda ay halis ku gasho xadiid kala jira oo isagana xadiidu Anas ibn Malik oo isagana Ahmad iyo qeyrka ay soo saaraan bisnaadin saxiix nin baa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid markaas wuxuu ku yiri ya Muhammad ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khayrana wa ibn khayrina Muhammadow sayyidkanagiyow sayidkanagu ku dhalayow kii noogu khayr badnaayow kii noogu khayr badnaa wiilkiisiiyow wuu ku yidhi markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam yaa ayuha nnaas calaykum bitaqwaakum wardadow taqwadii alla ka cabsiga laazima yani hadalkaad ku hadlaysaan ilaahay uga baqa waay laa yastahwiyannakum ashaytaanu shaytaanku yuusan idin duufsanin oo hawadiinna qaadanin أنا محمد بن عبد الله أنا وحانه محمد أباهنا وعبد الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله وإلهي بان كرارتي مجعلي إلهي بوسكو إدقى إناد كر إيقا قاتان مجعلي بنبي صلى الله عليه وسلم أدون إلهي بان هاي رسول كيسين وانا هاي أما أنت هاي قبضينينا وفيرسada nabigu arinta uu ka biyadiidad maxay tahay waxay dhaheen sayidka nagi baa tahay aabahana sayid buu ahaa oo nabi maxamed soo sayid ma ahayn ana sayyidu waladi aadam wala faqr sooma aadam intuu dhalay sayidkoodu ahaa khayruna wa ibn khayrina bay dhaheen kii noogu khayr badnaa baa tahay kii noogu khayr badnaana waa ku dhalay oo miyayna saxay nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka isaga u khayr badnaa tadamba qalad ah oo aabihii inay ku sheegaan dadku ugu khayr badnaa khalad meelaha waa kaga jira laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadku ugu khayr badnaa haddana nabigu muxuu diiday sallallahu alayhi wasallam muxuu ka biyadiiday wuxuu ka biyadiiday arrinka amaantaasi intay la durugto inay gaarsiiso in ay ka badbadiyaan halkaana ay dadka ka soo gasho inay nabiga ku xadgudbaan sallallahu alayhi wasallam amaantaasi marka waxay keenaysaa iyo buunbuuninta ruuxa la buunbuuniyo marka dambe in lagu fitnoobo waana taa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay amaanta hayga badinina amaantaydana ha ku xadgudbina haddaad i amaanaysaan waxaad tidhaahdaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa leanna ilaahay baa saa ku ammaanay allah nabigeenna markuu ammaanayo sallallahu alayhi wasallam ammaanaha uu ammaano waxaa ka mid ah inuu addoon ku ammaano addoon in lagu ammaano waa sharaf inuu ilaahay addoon u yahay keligii tabaaraka wa tacaala marka quluwiga ayaa markaa la diiday rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale haddii agtiisa ama asaga magaciisa ama ammaantiisa asagoo jooga khalad laga galo nabigu kama aamusi jirin sallallahu alayhi wasallam ma dhowran jirin mana ka aamusi jirin markaaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa boodi jiray waa diidi jiray dhowr miisaal haddaynu tusaalaan u soo qaadanno gabadha la yidhi ربيع بنت معوذ أي واحد تري دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي نبي قال إيسو قالي صباح ذي لي دستي وان أروس قالي أي نبي قال إيسو قالي بيت فجلس على فراشي كمجلسي كمني نين كان إله الله هل كان أدادو هذا يفردو هل كانوا كالياتون نبي قال يفرست بيت صلى الله عليه وسلم كوشي وكسوفرست وجويريات يضربن بالدف قبل يرير أي مركا دربان قراعة يبيتري يعني عادة مركو أروس كدعو أو جور كدعو أو جور حسوبيا هاي دربان بالله قراعة مركا قبل يرير با أروس كدربان كقراعة النبي صلى الله عليه وسلم جوجشي وقرأ كوي يسوفر يستبيت يندبن ما قتل من آبائهن يوم بدر ما ننتي بدر أبيا شودي لله أي أمانيان نوع بروديق وسمينيان وأمانيان وقبيا يعني برامبر وحوجات تحي ترينيا حتى قالت جارية إلى أي قبله يراميت كم إذا أي تري وفينا نبي يعلم ما في غدي قبله كم إذا يركاها أي هذا الكوح لما رأينا تري وفينا نبي وحان دحجوج نبي يعلم ما في غدي وحبري إيمان دون أك halkaas ay hadalka maris gabadh yar oo foodley nabigu sallallahu alayhi wasallam inta markuu maqlay
وقبل فولي هيسكوتين مرة هنا نبي قواب صلى الله عليه وسلم مركز أوحد لا تقولي هكذا لا تقولي هكذا قبل يا سهدين وقولي ما كنت تقولين هذا الكي هريد الله يده هذا الكي عاد أبياشي النيل اللايي يكون أمانة نيزين كا إسكود وتبود لكن نبي بان دحجوغا وحا بري إيمان دون أوك وقالت تشوشي بنبي كل صلى الله عليه وسلم وقبل يرقو أنا قال ودادين وحي لليه يا أولياء إيو ودادين إيو غيب كي أوجي هينو عرشي دال عدانو ميلا بدن بيكور هيانو قلبي قاقي أوجي هينو وحي لحي بيكور هيانو وحصوص عضي شيغيانو نبي محمد محوليه قبل يرتا وحو كلنا وبري وحي إيمان دون نبي محمد أوجي وخلد تشوشي برسول كله صلى الله عليه وسلم لأن سيد القرآن كشيء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أرينكم مركز هاسو ومدوا القادن شير النبي صلى الله عليه وسلم أما أمان إسقى لقوا أمانة يحد كرافسن أما وحو صناهين ولقوا الشيء قدر كلا رافيه موسى دول قادن شير رسول صلى الله عليه وسلم وديدي شري ومثال هذا كم إذا حديث عبد الله بن عباس أحمد وصوصار بإسناد صحيح وصحيح لغير بانديلها رسول كان صلى الله عليه وسلم نبا وحكيري ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت وحو الله دونه أذنا أظنت مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا أما عدلا ما إلهي بعد يقرب لك تيوت من لم يقرب لك تي بل ما شاء الله وحده سيدا هدينه وحو ألد دونه كلي كيده اللي أدوم دي ساس قرب دقي ما نية إلهي بعد سكان قرب دقي الله وحو دونه هذيك النبي محمد نادونت يعني وحويان إن حق إلهي له وحي له وقوليال بل وحاتر هذا الله وحو دونه كليجي يعني هاي دوا دقين وادي النبي صلى الله عليه وسلم سومارت مركب الرسول وكبو يدي شري ما هسيد ودادين إنه هو جنيه ما يا مركا أمان تلاقى بديو خلد حتى يبين بلغو أمانه يعني مدح فورنا هيو روحه مدح الروح هيو أبوه هيو مرقان صنو تشود بيسر ما هي هدي النبي كان صلوات ربي والسلام عليه نبي محمد ما أقولين حد كين لضعفيه سيدا ساينا صحة نيك علماء إنه صن أقولانين أمان إيه بونبونين إيه إن لقى بديو إنه صن أقولانين بصحة سو كده يعني النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه لبدا طريق مركا ولا بدا طريق خلد علماء قدر كودين إن محوء هاي هوس لورد ديجو لوجو تشيسو لوجو عياره أما لا حقيره إيه إن حد كود الله رافيه إلهي ديجي لبدا ولا بدا طريق خلد طريق الصحة وحويان الحسنة بين السيئتين سيئة حد لافك يمدن كجابنته لحظة وناقو كتشرات شيت كصحة أنا كاوي قرآن كي السنة أين برين قضب كاسوا قضب كلا بعد مدن إن براورجنا وحويه فرق با وحو دحيا wadaadku hadduu ama cilmi ka tegey ama kutub ka tegey ama muxaadaraad ka tegey ama fataawi ka tegey hadduu cilmi ka tegey cilmigiisaana khaladaad galay la sheegayo ama la saxayo iyo in la caayo way kala duwan tahay sheekhani waxaanuu ku khaldamay iyo mas'aladanuu ku khaldamay iyo kitaabkiisa khalad baa ku yaala iyo fatwadiisa khalad baa gashay iyo muxaadaradaasi khalad buu ka galay cayma waana waxyaalaha la isku khaldaya ka mid wadaadkani waa khaldamay lama caayin wadaadkan kutubtiisa khalad baa ku jirta cayma caydu waxa weeyaan sharafkiisa la dhaawaco يعني أبتركيسة وحلاقة شيء عردكيسة شرفكيسة وحلاقة شيء إلا يدهدو محوها هاي السجون دليل شرعي الله هاي ندين توقبح ديكيسة إلا بنيس نار بوجليا اللي يدهد حد قدوك كاس على ده لكن وحي وكتجي علمي ولا دبجلي وحي صحصنا ولا قادر وحي خلدنا ولا قص ومحوها ماشى ولا قصاري تانا معها عيبين إيه حد قدوك معها علماء حد قدوكما وسيء نقونيسا
say u noqonaysaa qur-aanka kariimka ah leanna saan sheegnayba culimmadu macsuumiin ma aha sheekhaagu macsuum ma aha ka dariiqadu macsuum ma aha ka madhabku macsuum ma aha ka ururku macsuum ma aha sheekh kasta ma jiro ilaa caalimi ma jiro ilaa wuxuu ka tegay khalad iyo saxba waa leeyahay waxaan haba yaraatee khalad laga heli karin oo kitaaba waa qur-aanka keliya kitaab kale ma jiro ilaa wax lagu qoonsaduu leeyahay saxiixulbukhaarigana aad aragteen oo qur-aanka kitaabka xagga sixada qur-aanka kitaabka inoo soo raacaa culimmada qaarkood baa intay dhex galeen baa waxay yidhaahdeen masaa'il ku qabsadeen alimaamu bukhaari calayh raxmatullah biqadri nadar ma bukhaari baa ku saxsan mise ninka kalaa ku saxsan daaraqutni baa dabagalay rag kalaa dabagalay masaa'il baa lagu qabsaday yaa ma jira marka waxa weeye sheekha naqi baa kitaabkan qoroo lama taabto mana khaldamin yaa waxna kama khaldana ma macsuum baa sheekhaagu allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay akhdaada cilmiga ah oo culimmadu ka tagaan ama akhdaada muxuu ahay iyo khaladaadka aadamuhu galo in la sheegaay oo markaasi diinta taabanayahay saan tilmaannay cayn maaha xadgudubna maaha qur-aanka kariimka waxaad ku aragteen nebiyo ilaahay soo dirsaday oo arrimo ay sameeyeen qur-aanku saxayo qur-aanku inoo sheegay inuu ilaahay saxayo soo ma nebiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markii uu shaydaanku intuu lumiyey geedka uu cunay soo qur-aanka ma sheekayn haddana towbaddiisoo lama sheegin aadam wixii uu sameeyey iyo xaawa ay sameeyeen hadduu qur-aanku ka sheekeeyey aadam iyo xaawa miyaa la caayay mise khaladkoodii baa la sheegay yaa waa kala duwan tahay imisaa ambiye ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qur-aanka ku sheegayaa oo arrimo ay sameeyeen ilaahay ka saxayaa la canaananayaa qaarkood yacni waxoogaa maarata la yara cama joojinayaa imisaan maraynaa nabiyullaahi yuunus calayhi wacalaa nabiyina salatu wasalaam maxaa la mariyey soo ma aragti yacni wax weeyaan ma aha marka yacni wixii khata hadduu u muuqdo ama khalad u muuqdo in la saxaayey shakhsiga cayna kuma aha ceebna kuma aha aflagaadana ma aha sidaa in loo qaatana waa caqliyari cilmiyari horaanteed macnaha sunnada nebiga sunnada waxaa ku badan in badanoo nebigeennu sal alla alay wasalam saxaabada oo khaladaaday galeen uu saxayo saxaabi khalad galay khaladkiisiina sunnadu waa sheegtay nebigu siduu u saxayna wuu sheegay saxaabiga lama caayay in badanoo ka mida saxaabada ridwaanullaahi calayhim way isradin jireen abubakar masaa'il fara badan oo uu ka tegey oo uu fatwooday ayaa lagaga daba tegoo lihi abuubakaroo masalada waa khalad cumar baa la saxayaa masaa'isha qaarkood waxaa la saxayaa cuhmaan cali bn abi daalib baa la saxayaa taabiciintii baa isa saxaya a'immadii waaweyneed baa isa saxaysa yacni waxa weeye shaafici iyo ardadiisii baa isa saxaya abu xaniifiya iyo ardadiisii baa isa saxaya axmed iyo ardadiisii baa isa saxaya cilmigu weligii saasuu ahaa yacni sheekh baa wax ka tegaya wixii u muuqata inuu khaldan yahay lagaga hadhi maayo waa la saxaya haddii la saxo khaladkiisa la caddeeyana ma aha war sheekhii baa la maagayey awliyada maxaa loo taabtayey sheekha maxaa laga rabaayey muxuu ahay ma aha maagid ma ahee waa cilmi waxa meesha ku qorane ciddii haysa inay wax ka khaldan yihiin waajib bay ku tahay inuu saxo oo uu muxuu ahay caddeeyo wixii ka khaldan saas daraaddeed baa alimaamu maalik caleyh raxmatullahi maquuladiisa caanka waa kii lahaa maa mina min axad ilaa raaddun wamarduudun calayh ilaa saaxibu hada alqabr ma jiro cidduu dooni ha ahaado ilaa waa la radiyaa yaa isaguna waxbuu radiyaa waana la radiyaa hadalkiisa waxbaa laga qaataa waxna waa laga tagaa ilaa qabrigan ninka ku jira mooye waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi maxamed mooye cid ka soo hadhay oo hadalladiisii iyo kutubtiisii iyo siday yihiin loo qaato maba jiraba bini aadamku waa dadaalaya laakiin caqligiisa iyo cilmigiisa naf baa la xidhiidha shaydaan baa la xidhiidha waxbaa ka khaldamaya wixii ka khaldamana in la saxo wey mana aha taasi yacni waxa weye ceebna kuma aha muxuu ahay meel kaga dhacna maaha sidaasaa marka culimmadu soo kala gaadhay sababtuna waxay tahay haddii culimmada wixii khaladaadee ka dhaca la saxaayey ninka khaladka galee culimmada ana maslaxa ugu jirta khaladkiisa in la saxo ummadda diinteedana maslaxa ugu jirta
ummadda diinteeda maslaxa ugu jirto diinteennu 1400 sano ka badan innaga oo nimid 400 iyo 4 muxuu ahaayay 1400 sano ka badan oo ay diinteennu joogto islaamnimadu joogto haddana maca daalika ayada oo waxba iska bedelin bay inoo timid maxaa lagu ilaaliyay diintan waxaa lagu ilaaliyay ilaahay ku xifdiyay quraanka kariimka uu xifdiyay iyo culimada islaamka oo taariikhdooda ninkii diinta khalad ka gala inay baraarujiyaan ay kadibna ummaddu khaladkiisii ay ka joogto diintuna ay ka nabad gasho sidaasay diintu iyadoo saafay inagu soo gaadhay وإلا وداد ودبهدل يراد ورخلت كيس يلا تابني دين تاني خلط بيسوي ذا بدري له كتب وذا خلط يدين وذا خلط إنه سوق قاعد له دين تمرك وحيكون إلى شنطة هاي وداد كخلط ضمي إلا يراد واد خلطنتي كتاب كخلط كوكوي على إلا يراد خلط كاسة كوي على الله صحه دين تساس يكون رصد إلهنا تبارك وتعالى يضع صافيا وسوق قارسي وداد كأمنين كخلط كوكرنا عينه مصلحة وجود شرطة إن خلط كيس اللي براروتشي الله صحه khaladkii uu galay intuu sii socon lahaa oo ummadda ku sii socon lahaa isagana dambigu u socon lahaa soo ma dhaantay inta la baraarujiyo in khaladkiisii uu meesha ku ekaado isagana khaladkii ku sii socon lahaa dambigu ku sii socon lahaa uu ka badbaado soo ma dhaanto isagana sidana u dhaantay sidana diintana sidana u dhaantay saas daraadeed halkaasi waxay galataa wuxuu galayaa baabka la yiraahdo an-nusxu baabka nasiixada yaani waxa weeyaan ad-diinu an-nasiixa wa nasiixu markaas diintana waa loo danaynayaa kii khaladku ka dhacayna waa loo danaynayaa culimadu waxay dhigi jireen markay kitaabta qoraan war intaasi waa iga tabar waa iga dadaal waxba ma yaraysanin laakiin bini aadan baan ahay wixii khaladeed ku aragtaan baraarujiya yaani waxa weeyaan saxa anigana ilaahay dambi dhaaf ii weydiiya kutubtooda markay qorayaan sidaasay dhihi jireen waxay dhihi jireen kitaabkaygaasi quraanka iyo sunnada ha lagu miisaamo wixii quraanka iyo sunnada khilaafsanna ha la tuuro sunnada iyo quraanka iyo sunnada qaata imaam shaafici baa u badnaa dadka hadallada noocaas oo kale laga dhaxlay waxayna tilmaamaysaa dadkaasi ikhlaaskooda iyo alla ka cabsigooda ayay tilmaamaysaa saasay culimadu weligood taariikhdooda ahaayeen طيب inta markaan ka nimaadno oo muqaddimaadka aan u nimaadno waqfada saddexaad ama qodobka saddexaad ee baraarujinta mudan waxay tahay arrintan buuqa dhalisay ee lagu qabsaday ninkan wadaadka dhalinyarada ee la yiraahdo Ibrahim Ciyow ma aqaananiin markii ugu horreysay magaciisa maqlay way qoon horan uma lahayn laakiin mas'alada wadaadka lagu qabsaday iyo waxa uu sheegay iyo qaabka loola tacaamulay yaan doonaya inaan dul istaago annagoo ku salaynayna qodobadii haddaan soo sheegay laba arrimood baa oo ninkaasi ku qoraalkiisa ku sheegay Facebook waa qoraal yar oo koobanba qodobka koobaad wuxuu ku sheegay sheekha kutubtiisa in ay ku jiraan waxyaalo shariicada khilaafsan oo shirkiyaad iyo khuraafaad ka mid yihiin nafcina aan lahayn baadi iyo khuraafo inay ku jiraan kutubtiisa qaar ka mid ah ayuu tilmaamay qodobkaas ah sheekha gaala muusan dhih sheekha la fahantiisana muusan durin sheekha muusa caayin laakiin wuxuu yidhi kutubta sheekha khaladaad baa ku jira soo qodob ma qodobka labaadna ninkani wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa wadaadku markuu dhinto qabrigiisa in la caabudo waad arki doontaan buu yidhi magac siyaaraa lagu caabudi doonaa magaca barakaysi baa lagu caabudi doonaa iyo lagu baryi doonaa waadna arki doontaan buu yidhi hadalkiisa marka la soo wariyay labadaas qodob buu ka kooban yahay labadaa qodob maxay istaahishay qaabkaysa ahay in loola dhaqmo qodobka hore cadaaladdu waxay keenaysaa ninka waxbuu sheegtay wuxuu sheegtay in la yidhahdo caddee
nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay waslam albayinatu cala almuddaci ruuxii wax sheegta waa in caddayn la weydiiyo kutubta sheekha shirki baad ku sheegtay soo maa khuraafaad baad ku sheegtay khalad baad ku sheegtay mukhaalafaad baad ku sheegtay gartu waxay ahayd cadaaladuna ahayd inaan lagu qayliine oo xidha iyo qabta iyo erya iyo inaan la dhihine in la yidhaahdo caddee xaggay ku taallaa soo maa miiska soo saar oo laga warsugo laanna nebigeenna saa u dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii ruuxa uu khalad galo oo khaladba uu muxuu ahay lagu arko markaaba lagulama boodi jirine rasuulku wuxuu dhihi jiray sal alla alay slam war maxaa dhacay war maxaa kuu geeyey war maxaa dhacay waxaad garanaysaan qadiyadii xaatib ibn abi baltaca saxaabigii jaliilka ahaa yacni nebigeenna sal alla alay wasalam markuu damcay inuu maka ku duulo oo quraysh intay ballantii ka baxday duulaankii uu isu diyaarinayo ayuu xaadib iyo rag ka mida ka war helay inuu nebigu duulaan u socdo kadibna sirtii nebiga ee caskariga ahayd sirtii amniga ahayd oo inuu duulaan raba ah ayuu xaadib intuu waraaq qoray oo naag u sii dhiibay ayuu ree maka gaaladii nebigu ku duuli rabay buu waraaqda u diray oo yidhi maxamed baa idinku soo socda duulaan baa laydinku soo yahay soo sir nebi ma ah nebiga sal alla alay wasalam waxyi baa u yimid waa loo sheegay markiiba saddex saxaabada ka midoo fardooley ah buu diray wuxuu yidhi orda oo meel hebele markaad maraysaan naag baad arki doontaan halkaa neef geela saaran waraaqday wadda ka soo qaada way ordeen fardahooday qaateen say u ordayeen meeshii nebigu sheegay rawda dakhaakh ayaa waxay ugu tageen islaantii oo sii socota oo neef geela saaran naabal istaag way istaagtay waraaqda keen bay ku dheheen waraaq ma hayay tiri naa wada haysaaye keen ma hayo ratigii bay ka dejiyeen alaabteedii bay furfureen way baadheen way ka waayeen waxay ku yidhaahdeen annaguna been ma sheegayno beenna nalooma sheeginoo nalaguma soo dirin laba mid ama waraaqda waad soo bixin ama maryahan kaa dhigaynaa waa ku qaawinaynaa leanna aday kugu dhex jirtaa waraaqdii waa markay aragtay indha run ah hawshuna kululaatay ayay markii dambe waxay ka soo saartay waraaqdii timaheeda dhexdooda mise meesha guntigaa meel bay ka soo saartay hooya bay tiri walaa idinku dhacday dhaaf waraaqdii bay soo qaateen waraaqdii iyagoo waday nebiga u keenay sal alla alay wasalam nebigu hadduu waraaqdii furay mise waraaqdu xaadib bayba ka socotaaba war bal xaadib u yeedha war xaadib war maxaa kugu dhacay war waxani muxuu yahay markiiba nebigu ma dhihin sal alla alay slam war waa khaa'in sirtii nebigi iyo sir ciidan buu bixiyey qoorta ha loo caseeyo rasuulku wuxuu yidhi war xaadib maxaa arriman kuu geeyey maxay tahay waxani markaasuu yidhi rasuulku ha igu degdegin roortaykaada ha igu degdegin warka iga dhegayso ujeeddada intaasaan ka lehay qisadu waa dheer tahay soo ma aragti marka waxa weeye ma aha ruuxa hadduu wax sheego in markaaba lagu boodo oo dagaal lagu qaado oo nebi muusan caayin cidna muusan caayine kitaab baa khalad ku yaallaa buu yidhi war khaladka sheeg maa la dhaho soo gar maaha khaladka caddee in la yidhaahdo waay sidaasi ayay ahayd albayinatu cala almuddaci qur-aanka kariimkuna wuxuu ina baray ciddii wax sheegatay in la yidhaahdo qul haatuu burhaanakum xujadiinna keena qur-aanku wuxuu ina baray nabbi'uunii bicilmin in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan cilmi noogu warrama daliil saara xujo keena caddeeya qur-aanku taasuu ina baray wa ilaa waxa weeye in ruuxa lagula boodo arrinkaasi ma aha dariiq saxsan ma aha waana waxaa hadda loo yaqaano alirhaabu alfikri baa la dhaha alirhaabu fikri yacni waxa weeye in layscabsi geliyo oo ruuxa inuuba badheerihiisi iyo warkiisa wuxuu qabo sheegtaba in la cabsiiyo yacni muxuu ahay loo lahandado oo loo cagajugleeyo taa iyada ah ma saxsana taasi waa qodobka labaad wadaadku wuxuu sheegay oo kutubta sheekha inay mulaaxadaad ku jiraan ma run baa mise waa khalad wax badan baa dib ka soo oo kutubta sheekhu uu ka tegey anigu ma akhriyin lacalla inuu akhriyina waa dhici kartaa inuu wax ka mida akhriyina waa dhici kartaa laakiin anigu ma akhriyin
laakiin waxay suurtagal ku tahay sheekhu horta tayaarka suufiyada iyo dariiqooyinka ayuu sheekh u ahaa odayaashoodana ka mid ahaa asaguna ma qarsanayo dadkuna waa ogsoon yihiin saa mar hadday tahay dariiqooyinka suufiyada waxyaalo fara badan oo ummadda caqiidadeeda taabanaya oo cibaadadeeda taabanaya oo qur'aanka iyo sunnadaba khilaafsan ayaa lagu haystaa wax badanna horay loo sheegay wax badanna la sheegi doono la caddayn doono oo qubuurta baryada cibaadada wixii ilaahay lahaa oo wasiilo inta tawassul inta la yidhaahdo la siiyo makhluuqaadka waxyaalo fara badan oo lagu haysto dariiqooyinka suufiyada sheekhu horta wuxuu u ahaa oday buu u ahaa ha u ahaadee way dhici kartaa isaga oo ka tirsan haddana inuusan waxyaalaha qaarkood qabin waa wax suurtagal ah taa markii laga yimaado waxaa ii suurta gashay shalay intaan diyaarinayay kelimada diyaarinahay in aan helo sheekha qasaa'idii uu ka tegey nin wuxuu ahaa muxuu ahay qasaa'idda iyo shicirka carabiga iyo nadmigiisa iyo ku fiican buu ahaa marka qaar ka mida ayaan helay oo yar aad u tira yar waxyaalaha marka uu sheegayo ninka la yidhaahdo ibraahim ciyow wax ka mida ku jira waa wax yar dhowr baydoona arkay waayo haddaan wax idinka sheego maalan qasiido uu nebiga ku ammaanayo sal alla alay wasalam qaybo ka mida sidanay u yaallaan wuxuu leeyahay nebigu la hadlaya sal alla alay wasalam متى تكرم بإصلاح عوجاجي ومحو خواطر تؤذي الضمائر ضعيفا كنت ذا جسد عليل وليس سواك لي عون وناصر فأدركني وجد لي ذا المعالي بما يشفي الضمائر والسرائر وكل يا رسول الله حرزا من الأسواء باطنها وظاهر نينكي عربي يقان وافهم نين كان عربي يقولون أنا كوشر حمر رسولك الله الله عليه هدي أد قلقلو حيقا أد يقو كراميسو توسينتيدا إيو قلبي جايك خواطر تيدا وحا كتشيرا إناد إيقا ترتو وضمير كيقا دبي waxaan ahay mid dabar daran oo daciifa jirkayguna waa jirayoo jiran baan saaxiibo yaa ila saaxiiba cid aan adiga ahayn oo ii kaalmayni ama gacan ii fidinna ma jirto iyo ku wada yaa nabigu ku wada sallallahu alayhi wasallam walaysa siwaaka li awnun wa nasir cid aan adiga ahayn nabi maxamedow kaalmana iima aha hiiliyana iima aha cid kaloon haystaba ma jiro oo away alle yaa soo wax la isweydiiye maaha hawsha ayaa lahaa yaa naasir ah yaa muciina allah nebigu ku xasiriyey sal alla alay wasalam intaa muuna kaga hadhina wuxuu yidhi sheekhu fa adriknii isoo haleel isoo gaadh وجد لي يقدق يا ذا المعالي يا ذا المعالي مقامات كسركيلة هايو يسو قارو يسو هلال بما يشفي الضمائر والسرائر وحيالها قرصون قلبي جاي كتشرة وحدة ويا إلى سوقات وكل وحديها يا رسول الرسول كلاه حرزا حرسي إنقو meelaan ku dhowrsoonaadon isku ilaaliyo ama ilaashimo ii noqo min al-aswaa'i xumaanyaalka aan isaga ilaaliyo kaga dhowrsado baatiniha keeda qarsoon wa dhaahir iyo midka muuqdaba wax xunoo muuqata iyo mid qarsoonba meeshaan ka geli lahaa ee iga ilaalin lahayd rasuulkuna ii noqo buu leeyahay waxagee dhibaatooyinka lagaga carayaa se ilaali yaa soo allah ma طيب waxaan doonayaa inay ka jawaabaan marka wadaadadii wiilka dhalinyarada eryaday
oo meel kaga soo hadhay oo kitaabta sheekha ka dhigay sidii iyadoo quraan muqaddas oo waxba khalad ku jirin oo kala ah sheekha ashcaartiisii qaar ka mid ah miyayna khaldanay ya mise way khaldanta ma dhigi kartaan khaldanta way khaldanta طيب sidoo kale qasiido yaroo gaaban oo iyadana dhowr beyd ah oo iyadana aan helay oo sheekhu uu ka tiriyey muxuu ahay mawliidka nebiga sallallahu alayhi wasallam ihtifaalka damashaadka iyo isumaadka loo sameeyay mawliidka nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaan iyadana wax yar ka arkay oo beydki ma badna ayada khaladaad baa ku jira shirki ma aha laakiin khaladaad cilmiya ku jirta midna waxa ku jira bisha rabiicul awwal ee nebigu uu dhashay ayaa wuxuu leeyahay faaqat ala saa'ir ash-shuhur bilaha kale oo dhan iyada ka fadli badan ya mar rabiicul awwal baa ramadaan ka fadli badan oo ashhurul arba'a al-hurum ka fadli badan waa mid labaad wuxuu leeyahay habeenkii nebigu dhashay sallallahu alayhi wasallam waxay ka fadli badan tahay laylatul qadri xagee ku taala laylatul qadri quraanka noo sheegay habeen ka fadli badan inuu san jirin khayrun min alf shahr habeenkii nebi maxamed dhashay baa ka fadli badan laylatul qadri xagee ku taala wadaad baa hortii yidhi laakiin isaguna waa khaldamay waxaa kaleetoo ka mida ciddii mawliidka inkirta waylun lahu wa waylun lahu wa tabban lahu halaag ha ku dhaco oo halaag ha ku dhaco oo balaayo ha ku dhacdo aafa ha ku dhacdo ninkii mawliidka inkira war waa masalo muran ku jiree sidanaa xoog badan iyo sidanaa iga xoog badan iyo sidanaa inoo quma bay mudan tahay ninka kugu khilaafsanay weyl iyo tabban ma mudna waxaa ka mid a dacwa alijmaac calaa jawaazi alixtifaal bilmawlid wuxuu yidhi culimmadoo dhan baa isku raacday mawliidku inuu bannaan yahay wax isku raacayna ma jiro culimiya caamaba waa la ogsoon yahay inay masale khilaaf iyo muran badan ka jira ay tahay ilaa waqti hore iyo ilaa hadda khaladaadka cilmiga ka mid tahay waxaa ka mid ah cidda mawliidka diidan inuu yidhaahdo sheekhu iska dhaaf daliil ma hayo iyadu waa iska caadiye inuu yidhaahdo xishoodna ma leh alla ka cabsina ma leh xaqana uma hoggaansamo oo culimo waaweyn oo ajla ah oo tiradooda aan la koobi karin baa mawliidka diidoo shaaficiye cid walbaba leh xishood mayna lahayn miya alla ka cabsina mayna lahayn miya marka waxa weeye waxaan yayna gaadhsiisnaanin sidaas taa horoo kale laakiin waa dhowr bayd oo mawliidka uu ka tiriyey oon haddana muxuu ahay meel ku arkay ayaa iyagana waxaasi ku jira mar labaad baan marka ku celinayaa khaladaadka kitaabta ku jirta ama kitaabta sheekha ama sheekh kale ama wadaad kale ku jirtaay in la baraarujiyo ummadda loo sheego la yidhahdo waa khaladaad ahay layska ilaaliyo asaga dantiisa wee sheekha ummadda iyo diinteedana danbay u tahay cayna ma aha aflagaadana ma aha ninkii saa u qaatayna wuu khalday soo qodob maaha laba qodob baan ku sheegnay waxa uu ka sheegay wadaadku sheekha ka sheegay qodob wuxuu ahaa kutubtiisa waxbaa ka khaldan soo maaha qodobka labaadna muxuu ahaa ya qabrigiisa in la caabudaan ka yaabaya ayib qabriga ruuxa in lagu xadgudbo in la caabudo in laga baqaayey iyadana ma qalad baa khalad maaha waa laga baqi karaa waana loo baqi karaa oo nebi maxamed baa qabrigiisa u baqaye sheekheennu ma nebi maxamed buu ka fadli badan yahay nebi maxamed baa qabrigiisa in la caabudo ka baqay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu hurayra axmed iyo keyrkii ay soo saaray biisnaadin qawiyin nebigu sal alla alay slam wuxuu dhihi jiray allaahuma laa tajcal qabrii wahanan ilaahu qabrigayga sanam la caabuda ha ka dhigin lacana allahu qowman ittakhaduu qubuura anbiyaa'i masaajid lacnadda ilaahay ku dhacdo dad nebiyadoodii qubuurtoodii masaajid ka dhigtay meelay ku cibaadsadaan lacnadda ilaahay ku dhacdo nebigu qabrigiisa in sanam la caabudo uu noqdo wuu nebi moxamed sal alla alay wasalam ka baqi jiro ilaahay buu weydiisan jiray ilaahu qabrigayga sanam loo caabudo ha ka dhig xadiidka caaisha sidoo kale waxay leedahay caaisha nebigu sal alla alay slm fii maradihi aladii lam yaqum minhu
xanuunkii nebigu uusan ka kicina uu ku geeriyooday wuxuu dhihi jiray lacana allahu alyahuuda ittakhaduu qubuura anbiyaa'i masaajida yahuud lacnada ilaah ku dhacdo masaajid qubuurtii nebiyadooday meelay ku cibaadaystaan masaajid ka dhigteen caaisha waxay tidhi walowlaa daalika la ubriza qabruhu haddayna taasi jiri lahayn nebiga qabrigiisa bannaankaa laga dhigi lahaa khashiya an yutakhada masjidan qabrigiisa in masaajid iyo meel cibaada laga dhigtuu nebiga ka baqay sal alla alay wasalam ama saxaabadaa ka baqday fii riwaaya saas daraaddeed bay saxaabadu nebiga waxay ku aaseen qolkii xaaskiisa caaisha qolkiisay ku aaseen meel asturan bay ahayd wa ilaa qabriga nebiga waa la caabudi laha halkaasaa ilaahay ku ilaaliyay soo ma haddii nebi maxamed ka baqaya qabrigiisa in la caabudo wadaad dhintay qabrigiisa in la caabudo in laga baqaayo maxaa dembi oo ku jira aan idin weydiiye in la yidhaahdo war sheekhan qabrigiisaa loo baqayaa ninka yidhaahda maxaa dembiilo ka dhigay ma nebi maxamed buu ka fadli badan yahay sal alla alay wasalam waxyaalahaas waxyaalaha tilmaamayo quluwiga iyo xadgudubka iyo cadaalad darrada tilmaamayo waay cid walbaa loo baqi karaa in qabrigiisa lagu fitnoobo isagana lagu fitnoobo ka noolla waa lagu fitnoobi karaa ka dhintana qabrigiisa waa lagu fitnoobi karaa arrinkaasina iyaduna sidaa weeye oo hadalkaasi hadal yacni waxa weeye ceeb leh ama khaladla ma aha in la yidhahdo ruuxan qabrigiisa ayaan ka baqayaa in lagu fidnoobo waxaan intaa ku darayaa masalada markaa sidaa loo dhigo haddii la yidhaahdo culimmada yaan la caayin waa sax culimmada yaan la caayin yaan aflagaadaynin waase in la kala saaro wixii khalada sixiddiisa iyo cayda in la kala saaro waay waxaase laga maarmaan ah qaacidada ah culimmada yaan la caayin inay noqoto qaacido caam ahoo laga daayo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan wadaadada inta dariiqadaydana lama taaban karo kuwa kalena 24 saac ha la caayo wadaadkayga marka la taabtana culimmada maxaa loo taabanaya oo kuwa kale culimo maaha miya yaa alkayl bimikiyaalayn baa la yidhahdaa laba hal beeg baad haysataa midna adaa isugu beega midna dadkaad ugu beegtaa waa midda ilaahay ku tilmaamay waylu lilmudafifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun markay adiga kugu saabsan tahayna waad dhammaysani markay dadka ku saabsan tahayna waad dhimi yaa waa midda qur-aanku ka digay way cadaaladdarray tilmaami marka qaacidada culimmadoo dhan wada mari yaa miyayna social mediahe meel walba oolin wadaadada suufiyada oo cay iyo aflagaado iyo gaalaysiinba u geysanaya wadaadada sunnada iyo salafiyiinta wayna meel walba oolin yaa maxaa kuwana banneeyey kuwana diiday kuwa iska dhaaf kuwa noole kuwii dhintay ayaa sidii la doono loo caayaa oo la gaalaysiiyaa yaa dadka ugu daran ay ku xadgudbaan oo ay caayaan afla manaabirta la saaran yihiin sheekh maxamed cabdiwahaab baa ka mid ah sheekh maxamed ibn cabdilwahaab calayhi raxmatullah haddaad miidiyaha social media la socotaan wadaad waxaad arkaysaan dhahaya maxamed cabdiwahaab baan raaci diintii nebi maxamedna waan rumaysnahay waa fircoon baan raaci nebi maxamedna diintiisa waan rumaysnahay fircoon iyo sheekh maxamed cabdiwahaab buu isku meel dhigay war maxamed cabdiwahaab culimo ma ahayn miyaa yaa xalqe gooriyaan kaga hadli doonaa sheekh maxamed cabdiwahaab yuu ahaa maxaase lagu maagay yaa maxaa lagu maagay wadaadada maxaa lagaga maagay waa xalqa soo socota taasaad ku ogaan doontaa laakiin culimo maaha miya qaarkood manaabirtaa waxay ka leeyihin garac buu ahaa hooye muusan lahayn muxuu ahay hooyul aabbo muusan lahayn manaabirtay ka leeyihin qaar badan oo ka mida muxuu ahay muxuu ahay nebinigu sheegtay wax yani wax way laga yaqiiqsado waxaa ka mida oo social mediaha weliba aad ugu arkaysaan maalmahan mid isagana waxoogaa yara iska qaadiraysanoo marqaansanoo oo ku haya wahaabiyadu waa murtadiin gaalo ah falyashhad ithaqalaani da ku haya falyashhad ithaqalaani insiyo jinni ma ka markhaati kaceen
wahaabiyadu waa murtadiin diinta ka bax xataa hadday ashahaadan hayaan buu leeyahay ya war maxaad kaa ugu qaylin weydeen wahaabiyada ma taqaanaa wahaabiyadu waa dadkan sunniyiinta iyo salafiyiinta dadka dacwada tawxiidka faafiyay wahaabiye u yaqaanaa ayagu lamayna bixin marka waa murtadiin gaala ah dhiigoodaa bannaan ya kan maad qabatid oo ku wacaaya culimo maamiya ka imow qaar badanoo ka mida waxay gaalaysiinayeen sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo imaam caalima ah qaar ka mida saxaabadii nebigii xaasaskii nebigay caayayaan waa kuwa dariiqooyinka ka mid ahaa laakiin shiicoobay oo social mediaha ku jira oo ina hebel iyo ina hebel la yaqaano oo qaarkood intooda badan waxay ka tageen kililkay ka tageen waa ina hebel iyo ina hebel waa la yaqaanaa dariiqooyinka inay ka tirsan ilaa haddana waa ka tirsan yihiin ayagoo shiicada muxuu ahay meelahay caabudaan xilliyada muxuu ahay karbala iyo najaf iyo dhulka iyagoo yaacahaya waa kan miidiyaha ay ka soo baxeen waa ina hebel ina waa la yaqaanaa nebigu waxay caayaan xaasaskii nebiga sal alla alay slam saxaabaday gaalaysiiyaan wayna dhex joogaan weligiin suufiye radinaysa miyaad aragteen qaqabta iyadoo lelay miyaad aragteen dawlad lagu diray miyaad aragteen war saxaabadii nebiga kuwa caayahayay xaasaskii nebiga gaalaysiinaya ee taagtaagan maad wax ka qabataan intaad wiil dhallinyaro oo muxuu ahay kitaab baa khalad ku jira aad isugu tegaysaan oo aad cirka la aadaysaan yacni cadaalad darro waaye qaar ka mida waa dhowed waa kii magaalada kaalkaxiyo nebiga sal alla alay wasalam nin ku xadgudbay oo yacni istihzaa iyo jees ku sameeyey waa kii ummaddu ka wada qayliday ee ayar inta la qaaday difaaca loo galay kadibna inta la qaaday maxkamad wahmiya oo maxallala inta la saaray la iska sii daayay soomaali marka waxaase dhex jooga war dadkani markaad muxuu ahaay ay dariiqadaada yihiin oo xertaada yihiin oo xaggaaga yihiinna wax kastoy sameeyaan waa awliye ilaah kii aan kula dariiqada ahayn waxoogaa yar markaad ka heshana cirkaad la geli adeer waxa weeye culimmada ha la ixtiraamo ama wada camim ama bahasha waxaad ka dhigtaa wax jeebkaaga ku jiro oo kaadhoo ninkaad doontana aad siinayso ninkaad doontana aad u diidayso arrinkaasi arrin saxsan ma aha si cad ayaa waxaa dhacaysa xataa nebigeenna in lagu been abuurto sal alla alay wasalam wayna fiican tahay culimmadii caamada inaad kala garataan culimmadii caamada inaad kala garataan nin kasta oo intuu soo fadhiisto telefishin soo fadhiisto ama miidiyaha ka hadla aayad sheega ama xadiis sheega culimo maaha iska dhaaf idinku culimaa lagu been abuurtaad ka hadlaysaane nebi maxamed baa lagu been abuurtay sal alla alay wasalam wadaadkan horarka ahee hadh iyo habeenba maalinna nin saaran maalinna koox saaran ee soomow la yidhaahdo hadalkiisii u dambeeyey hadda sheekha uu ku difaacayay hadalkiisii u dambeeyey bal fiirsada nebi maxamed buu ku been abuurtay sal alla alay wasalam innaga wadaad baan ka hadlayna rasuulka wuxuu ka sheegay xadiid uu yidhi waa xadiid oo uu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi man lam yaxzan bimowti alcaalimi fa huwa munaafiq ruuxaan la murgin ninka caalimka dhimashadiisa ruuxaan la murgin waa munaafiq buu nebi maxamed yidhi buuhi waana beenaale nebi maxamed ma dhihin xadiisna ma aha asagoo meeshaa taagan buu dejinayaa nebiga ku been abuuranaya sal alla alay wasalam bartaa uu taagan yahay buu abuuraya markaasuu leeyahy rasuulkaa yidhi sal alla alay wasalam marka rasuulkii baa lagu been abuuran xaggee joogaa dad kale marka xaggee wadaadda joogaa waxaan leeyahay marka waxay u baahan tahay haddii la leeyahay culimmada ha la ixtiraamo aflagaadada ha la doojiyo xadgudubka ha la joojiyo gaalaysiinta ha la joojiyo ha la wada dadkao dhan ha laga dhigo adigaas ka hadlahaya arrintaasi ka hadlayana hormuud ka noqo laakiin la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan cadaaladdarrada noocaas oo kaleeta ah annagana aan ku kadsoonnoon hor orodno ma aha munaasabad ma jirto wadaadkaasi uu soo istaago ilaa ama shaksi buu saaran yahay ama koox buu saaran yahay wax kalena ugama baxdaba xataa munaasabaadka qaarkood waxaan la yaabay waxaa ka mid a munaasabaadka qaarkood oo xataa uusan fahansanaynba in wax loogu talagelin waxaa ka tan badanaya wixii isaga saarnaayo markaasuu munaasabaddii waxay la dardaraysaa inuu muxuu ahay uu dad maago
baadhaway dawladdu waxay isu keentay culimada Soomaaliyeed baa meelo badan la isaga keenay dawladdu qodobay rabto culimadu inay ka hadlaan oo go'aamo ka soo saaraan dadka meesha joogay dariiqooyinka suufiyada waa laga badan yahay Soomaali culimadeedii baa joogtay in badan oo ka mid maxaa la wata dawladda wadata fadhiga maxay rabtaa wadaadada inta la isu keenay wada hadlaan inay masaa'il iyo go'aamo soo saaraan meeshii baa intuu taa istaagay baa wuxuu yiri balaayo dhan waa wahabiyada ka socotaa waa khawaarij dawladdu si ay yeesho garan mayso warninkan qabta warninkan baabkii meeshii wixii loogu talagalay buu burburinaya munaasabad kasta xataa munaasabad ma leedahay ma laha meeshu ma u qalantaa uma qalanto xageed joogtaa danka male ninkii noocaaba intuu markii soo istaago wuxuu leeyahay culimada hal daayo maxaa sheekha loo maagay culimada maxaa laga rabaa waradu culimada ma deeysi waa falagaadada ma iska deeysi oo nabiga ku been abuurayso ma iska deeysi markaas haddana kaaga darane dawladii dadka ka dhaxaysay oo salafigu ku jiray oo tabliiqu ku jiray oo suufigu ku jiray oo inta mid aan ku jiray oo caamadu ku jirtay ayaa wuxuu doonayaa intuu amray inuu soo qabta sheekayga ninkii baagay soo qabta war dawladdu maaday ku shaqaysaa mise dawladdu dadka ka dhaxaysa waxay u baahan tahay dadku inay fahmaan miidiyahan inta wax la kiciyo la abuuro in hor yaacna meehe waxay u baahan tahay ummadani hab nidaam iyo cadaalad inay hesho keeda caamiga keeda culimada keeda dariiqada keesa salafiga keesa tabliiqa cadaalad inay heshay u baahan tahay ruuxa horarka ee dulmiga la wadana in la yiraahdo dulmigii horarka jooji arintan doonay inaan kaga baxo waxay tahay aan ku gabagabeynayo culimo sunnada iyo dacwada ku xisaabsan ayaa ka mid ahaa raggii barnaamijkaasi dhexbooday oo mawjadu qaaday arrinkaasina ma saxsanay waajibku wuxuu ahaa nin kastoo masalada ka hadlaya inuu jidkeeda mariyo oo ninkan kadaata la yidhaahdo Ibraahim Ciyow waxa uu sheegay inay culimadu hubiyaan intaysan maagin intaysan weerarin intaynan manaabirta muxuu ahay ka tashiirinin waxay ahayd inay hubiyaan oo yiraahdaan bal wuxuu sheegayo war balkeen in la yiraahdo laakiin dariiqooyinkii baa kacay wadaadadeenna waa horboodeen wadaadana waa sii horboodeen waa sii hor ordeen oo jidkii iyo muxuu ahay dhabihii bay u sii hor ordeen arrin saxsan ma ahayn sababku wuxuu ahaa inaan mawjada la hor ordin waayahan dambana sideedaba waxaa jira social media xaalad baa la abuuraa xaaladda la abuuray ee la kiciyay iyo mawjada kacday ayaa dad fara badan ayay muxuu ahay aynan hor istaagi karin ama ka hortagi karin waan marka waa inuu isdaad raaciyo wadaad badan oo waxa arkaysa marka mawjadu iska wadato daadka iska wato oo aan maya dhihi karin wadaadow hadaadan khaladka maya dhihi karin oo aadan diidi karin dhinac uga istaag laakiin khaladka socda inaad mujaamalayso oo aad muxuu ahaay garab boodo oo aad ka hadasho ama aamus ama khaladka jooji laakiin khaladka socda inaad adigii qayb ka sii noqoto si horboodaay masaladaas khalad waa mana ahayn hadiyigii ambiyada iyo salafka ma ahayn dadka takfiirka wada dadka xumaanta wada dadka khaladka wada dadka xadgudubka wada ninkuu dooni ha ahaado waa in jooji la yiraahdo waxa hadda waayahan aad u badan waagii hore waxa la dhigi jiray wadaadadan muxuu ahay salafiyiinta ayaa wax takfiiriya oo gaalaysiiya laakiin xaqiiqadu waxay tahay haddii qolyo noocaas halkaas lagu tuhmi jiray bixaqin aw bibaatil hadda waxaa ka darayo dibi dhalay suufiye takfiir ah yaa soo baxday dariiqo takfiir ah wadaadda dariiqooyinka oo haddana takfiiriyiin ah oo wixii iyaga aan khilaafsan oo dhan inay gaala yihiin u haysta in badanoo ka midana social media waad ku arkaysaa koox hebel waa gaalo koox hebel muxuu ahay dhiigooda bannaan yahay koox hebel ha la laayo yacni dhiigooda bannaysanaya oo takfiirkee lala dagaalamayo qoriga wataay ee muxuu ahay khaarijiga la leeyahay iyo kan dawaa'if rab wax alla wixiisa ka soo horjeedo dhan inay gaala yihiin u haystaay maxaa farqiga u dhaxeeya uu yahay kaasi qori buu wataa kana qori ma wato waa
cidday dooni ha ka timaado salafi ha ka timaado suufi ha ka timaado cidday dooni ha ka timaado sideedaba ummaddan muslimkaa ee diinta leh ilaahay rumaysana aakharo rumaysan cidda gaalaysiinaysaay oo diinta ka saaraysaay waa inay jidkeedii u marto waa inay daliilkeedii dariiqeedii dawaabideedii shuruudeedii ehelna u tahay masaladay ka hadlayso haddaan sidaa la yeelin waxaan noqonaynaa ummad iswada gaalaysiisa ka midba midka kale gaalaysiiyo hawo la isku gaalaysiiyo haddii la isgaalaysiiyo diinta la iska saarana tilaabada xigta waxaad ogaanaysaan in dhiigga la bannaysto oo markaasi birta la iska casro leanna dadka waxa kala ilaalinaya waxa weeye ruuxani markaad rumaysan tahay inuu muslim yahay dhiiggiisa xaaraanka ah laakiin marba haddaad diinta ka saartood gaalaysiiso macnaheedu waxa weye dhiiggiisu waa ii bannaan yahay waay halkaa marka la gaadhaayey ummaddu halis waxay ugu jirtaa marka inay diin ahaan isu layso oo ninka dadka gaalaysiinaya bimacnaa dhiiggoodiina waa bannaan yahaa ku xiga arrinkaasi marka waxa weeye aad buu waayahan u soo badanaya waxaana keenaya xanaaqa iyo xiisadda iyo isxakamayn la'aanta iyo ciilka iyo xiqdiga faraha badan ee aan haddana aynan la soconin alla kacabsigii isxakamayntu aynan la soconin waxaan kaga baxayaa ku gebagabaynaya masaa'isha noocaas oo kale ah waxaan leeyahay ninina kooxi raaci mayso dariiqada aad tahayna jannana ku geyn mayso ilaahay cadaabkiisana kaa badbaadin mayso salafi baan ahayna meel ku geyn mayso dariiqaan ahayna meel ku geyn mayso ikhwaan baana meel ku geyn mayso tabliiq baana meel ku geyn mayso kooxo meel ku geyn maayaan waxaa meel ku geynaya caqiidadaadana saxo cibaadadaadana saxo nebi maxamedna ha noqdo sal alla alay wasalam cidda aad raacayso kitaabkaa iyo qur-aankaana dayasho ka dhigo cibaadadaadana saxo caqiidadaadana saxo ilaahayna ku xidhan tabaaraka wa tacaala intaasaa ku anfici laakiin dariiqo iyo koox iyo gruub baan ka tirsanahay meel ku geyn mayso cadaaladadana ha lagu dadaalgalo social mediaha iyo wax ka socdana marar fala badan mawjadooda iyo dabaylahooda iyo daadadkooda aad ha laysaga xakameeyo iyo ooyaan la horboodin hada billahi tawfiiq sala allahu wasallam wbaaraka calaa nabi maxamed wcala alihi wasaxbi wasallam